in barnaamijkan uga faa'iideysano si wanaagsan dadku maaragtay shaqo la'aanta waxay dhaxal siisaa dhibaatooyin badan waxay dhaxal siisaa maaragtay in laga faa'iideysto noloshooda dhalinyarada oo mid fidna wado iyo mid kale oo dhibaato kala wado dadku maaragtay tahriibiyo juqaha gelsho meel qofka naftiisa halisa gelsho intaba ay ka faa'iideystaan waxa sababana waa saboolnimada iyo shaqo la'aanta sabab marka waxaan rabnaa dhalinyarada inay ka faa'iideysato hadduu ilaahay yiraahdo maamulka oo wasaaradda ugu horeyso iyo kan gobolka iyo kan degmadana waxa loo soo xuli doonaa karateeriyada iyo nidaamka ay noo soo gudbiyaan wasaaradda waxaan rabnaa qof ay ku aragtidiisa ku kooban tahay inuu abuurka dubto u yaalla keenin meesha qofka keentana waa lagu celiyaa markii waxaa la yidhi mashruuca wuxuu ku saabsan yahay kobcin dhaqaale qofka waxaa la sii haalaya dhaqaale inay dhaqaalahaas kobcisaa la rabaa ay horuu socoto laakiin qof inay abuurka dubata rabto halidhinoo la siiyo inta cunto ay haddana derbiga la soo wareegta rabto meesha hadday soo roogsato faa'iido ma laho waa qof aragti leh waa qof inuu waxaas uu kororsado oo ganacsiga ama waxa la baray oo ku faa'iideysan la rabo inuu ku gaaro meel fiican ku gaaro ayaa muhiim qofkan laakiin qasaaro hay'adda hawsha wadana waa qasaariye bulshadina waa soo ceebeeye intaba qasaaro ugu sugan marka ma rabna inaan ku ceebowno barnaamijna loo keenay oo inaan ka faa'iideysano ugana faa'iideysano inaan noloshayna qofka haddii oo noloshiisa kobciyo waxa la siiyo oo kobciyo kuna shaqeysto wax badan oo bulshada kamid ayuu anfaca wuxuu number 1 naqaha cashuur bixiyaasha oo kamid naqaha cashuur bixiyaha wuxuu kamid naqaha ehelkiisa iyo naftiisa wuxuu ku maareeyo oo fiican ayuu helay laakiin qofkii wax yaraayo ugu horeeyay oo tijaabada la siiyay inta cuna meeshan ku soo asoo inda buulbuura meeshan ku soo rogtay kaasi faa'iido ma leh marka kaas waxa roon aragiisa iyaga qariyay ay baasho gaaraysa marka inaan gaarno marna meeshaas kuwa ayaan naga qariy inay hay'aduna tiraan kuwa ka dambeeyay ay dhahaan taasi waxaan rabnaa inaan maaragtay aad iyo aad uga fikirno barnaamijkaana in allaale inta gacanta ka geysatay oo ugu horeeyay wasaaradda iyo saaxiibadan iyo hay'adaha kale oo deeqaha bixiyo oo maaragtay ka qayb qaadahayo wax bixintaan waa uga mahad celihaynaa waxaana soo dhaweeynaa sida ay noogu keeneen ayaan labada gacmood ugu qabahaynaa haddii aan nahay bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jooro laga bilaabay waxaan rajaynaynaa inaad degmooyinka aan intaan ka fiicnaano aad birita maaragtay degmooyinka kalena si dhaqsi aad noogu bilowdin ayaan rajayn doonaa haddii Ilaahay waxaan rabnaa bulshada dhalinyarada waa waxa la hadlayo waxa la rabaa barnaamijkan wuxuu caafimaad u yahay wax walba moogta caafimaad iyo cudur ay leeyihiin cudurka dhalinyarada ku dhacday oo qayb kamid ah inuu caafimaad u noqdo la rabaa barnaamijkan dhalinyarada kuwa iska caafimaad qaba xoogaa uun iska meel qaba gurigooda dadkooda isaga meel qaba waa jira laakiin kuwa cudur haya jiro cudurka haya marka waxaan rabnaa inuu barnaamijkan caafimaad u noqdo waa kuwa tahriibka maaragtay maskaxda ka dardartay iyo kuwa maaragtay nimanka kale oo Arsenal leeyahay maaragtay ka daba ordaayo inay caafimaad u noqdaan rabnaa ma fahanti marka waxaan rabnaa inaan caafimaadkaas meesha qaybta caafimaadka aan ka qaadano horumarka oo bulshada u leeyahayna inaad nooga faa'iideysiin qof allaale qofka Ilaahay calaf uga dhigo 70 ka badan aad joogto degmada Jowhar dhalinyaro ma joogaan 70 laakiin 70 ka Ilaahay u calfo oo ka qayb qaadato waxaan rabnaa inay noqdaan kuwa ka faa'iideystay beritana bulshada wax u taray waxa ay ka soo bilaabeen ayagoo yaqaan laga yaabo inay ayaga intay is saacidaan haddana dhalinyar kale inta ay soo saaraan ayaan ka rajayn doonaa mustaqbalka